wixii ka haliyeen ma ogi, wixii ka galabsaday ma ogi, qof walaalkaaga ahay oo qof khalad ka gelin, laakiin waxaan ku dhihi lahaa waxaad la mid tahay qofka shal ani xabad igu dhuftay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Cabdullaahi. Channelka ka hadlaya waa Sulub 2020. Maanta waxaan ka hadlayaa walaalkeen Asad Xaaji oo waxa ku dhacay oo YouTube-kiisii laga jabsaday ama laga dhileeday, hawada dhan laga saaray. Asadku waan ugu badan yahay, ilaah anaga mataqaanaa shartiro. Marka waxaan leenahay qof walba horumar gaara u niyad mataqaan aan garab istaagno, aan niyad dhisno. Sababtoo ah qofka hadda qof Soomaali ah maanta hadduu horumar gaaro, anaga hataa Soomaali nahay si ugu burburinaa lee ku fikirnaa. Ma dhahno walaalkeen aan dhiirigelino, walaalkeen aan waxaas u sameyno, walaalkeen saas waaye, waa qof Soomaali ka dhashay, saas inaa u istaagna ma jirto. Qofka bini'aadanka bis waxa waaye hadduu horumar gaaro waxaan leeyahay ha niyad jabin. Adduun marka waxaa loo dhahay waxa waaye mataqaanaa wax walba dhici karaan, jab la kulmi karto, mar farxad la kulmi karto, adduunba marba si waaye, ma fahantay? Marka suu kuu soo aadaba mataqaanaa u xamil baraada, ha niyad jabin. Haddana waa mataqaanaa waa soo bilow, waxa waaye sida ugu dhaqsiyaha badan meeshaad joogtay meel ka sareysa insha Allah waa gaaraysaa. Saas